inay soo dhaweynayso kaliya loo baahan yahay inta lagala mucaamala inay noqoto dowladda dhexe muqdisho in lagala mucaamalo meelaha noocaasa haddii ay ku yimaadaan baarlamaanka waxa uu buriyey heshiiskaas waa buriyey waayo dowladda dhexe waxay ku diidaneed heshiiskaas in aan loo marin hanaanka loogu talagalo dabcan heshiisyada la geli doono waa idin hormariyey oo baarlamaanka waxa u yeelan doonaa sharci ahaan inuu meel mariyo inuu ka doodo inuu wax ka bedelo iyo inuu diido inta xaq ugu yeelan karaa laakiin dowladda soomaaliya dowlad socoto waa iswaafaqsan oo soo socoto qeybeeda kala geysa ayay heshiiska markay gelaysa iskuma qabto ayay heshiiska gelaysaa mahayna heshiis qola la fakanaysa ama dowladda la fakanaysa ama wasiir la fakanaya ma noqonaysa heshiisyada qaar oo labada dowlad galeen waxaa ka qornay heshiisyadii hore marka yaa gala dowladda soomaaliya iyo etoobiya muddooyinka dambe oo heshiisyo ayay galayeen ama nabadgelyada la xiriirta ama siyaasadda la xiriirta ama siyaabo kale ha noqdaaneen heshiisyadana markii dowladnimadu waa joogto dadka matalana waa isbedbedelayaan dowladdii kaa horeysay waa inaad accept garayso heshiisyada ay gashay haddii aad ka baxaysa waxaa jira hanaan looga baxo heshiisyada caalamiga wax looga bedelo ama looga baxo laakiin had iyo jeer dowladdii timaada dowladihii ka horreeyay heshiisyadii ay gashay iyo go-aanada ay qaadatay way ku beraysan tahay ama 100 sano ka hor ha noqoto ama 10 sano ka hor ha noqoto ama sanad ka hor ha noqoto ama bilo ka hor ha noqoto sidaas daraaddeed ayaa heshiisyadii la gelay loo yidhaahdaa ama ay dowladdu u jiray waa si ama qaadayna oo waa la meel marina marka waxa kaliya heshiisyada kolley qodobada waa aragteen oo heshiisyada hore ama amniga ku aadanaa ama waxyaabaha kale ku aadanaa dowladda soomaaliyeed dowladihii ka horreeyay heshiis kastoo ay galeen agteeda maalin buu ka yahay haddii wax laga bedelaan hanaan caalamiya oo heshiisyada wax looga bedela ayaa lagu wajihi karaa laakiin dowlad dadda laga heshiin dowladnimada soomaaliya laga heshiin heshiisyada inta badan marka dalka Soomaaliya deegaanka oo kale anaga baa Soomaaliya maxay tahay dalku u yeelanaysaa heshiis dowladda Soomaaliya ay heshiis hadda bari heshiis oo ku qoma arrimaha Soomaaliya dalka Soomaaliya ay ku heshiis sida kale oo akhri dekada marka la dhiso dekada wadooyin baan ka baxay wadooyin highway wadooyinka highwayga xuduudda Soomaaliya la geynayo gudaha Itoobiya meesha badeecada la geynayo ama badeecada la geynayo marka waxaad shirka kaga noqonaysaa oo Soomaaliya Itoobiya ay soo maalgashanayaan waa dekadihii iyo wadooyinka ma garad wadooyinkana qaybna xuduudeena noqonaysaa qaybna gudaha jiraysaa badeecada nasadeeda oo soo saarka iyagana waa laga heshiin karaa marka dekada hadda dalka Soomaaliya ay ku taabtaan dekada Soomaaliya noqonaysaa laakiin wadooyinka iyo maalgashiga kale la soconayo iyo waxyaabaha kale shirkadaha ka shaqeynaya waxaasoo dhan shirka lagu noqon yeah okay well